بعد صحافة وما سنتهين وكعذر دارنا إن ليدين داهية وحال سعتين قدوميها إنه دور جار شلي warbixin ka bixiyay safarkeeni ku wajahna Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sida gudoomiyaha uu sheegay aad ayaan ugu xunnahay dalkan anaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa taadi iyo jibin la jibiyay dastuurka oo dawladdu si bareera oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas aan rabaa inaan ugu gudbo waxaan rabaa wax yar dib aan ku celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxa ogtiin anaga 60kii xorriyada qaadanay dawladda la soo dhisay dawladna waxa lagu dhisaa constitution sharciga lagu dhisaa si hay'adaheeda ay u wada shaqeey karaan si dadka ay midalayaan ay ugu adeegi karaan dawladda koobaad la soo dhisay ahaday dawladda aadan cadde Cabdirashiid ku xigay wala dilaaw naxariisto dawladda Maxamed Siyaad Barra ku xigtay waxay ahayd dawlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fawda laga soo bilaabo 19 ilaa 20 isku dayo badan la sameeyay dawladda caalamiga la soo dhisay wax badan la isku dayay laakiin ma shaqeeynin dawladnimada hadda socota taariikhdeedu waxay ka soo bilaabanaysaa 2000 macnaha waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dawlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed wali arintaas waxa loogu jiraa baadigoob meesha la soo gaaray marka 20kii laga soo bilaabo 2020kii iyo xilligan 2019 يعني انت مدحوينه isoo bedeshay iyo inta process la soo maray aad u ogtiin ilaa ku mahadsan taariikhdaas qayban ka ahay aniga iyo dad badan oo kamida ujeedada ugu weyn waxa la saaray dadka Soomaalida helaano nidaam iyagu ay doorteen dawlad iyagu ay leeyihiin oo u adeegta iyaga waxa la socotiin waxa la sameeyay tanaasulaad fara badan waxa loo sameeyay waxay ahayd danaha ummadda Soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba Soomaali oo dareemi karo sharafta dawladnimadiisa ku sharfanaado ama mas'uul ahaado ama qof caadi ah ahaado ahwaal xaqiijiyay waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axzaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay يعني isugu xireen deegaan iyo qabiil ay ku tartamaan afkaar siyaasadeed si ay codka ay rabaan u helaan kadibna laga sugaayo wixii ay ballan qaadeen inay fuliyaan dawladdan hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyo waxa wax loogu dhiibay doorasho waxa loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo madaxweyne Xasan Sheekh ka horeeyay asagoo awoodi haysta oo ciidamadii xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa ogolaaday inuu yiraahdo waa la iga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaabaysu waxa baysu dastuurka waxa uu nafarayaa 4 sanaba in la helo oo la qaban qaabiyo doorasho cid ku guuleystay xilka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo inta karaan madaxweyne Xasan Sheekh waxa ka horeysay dawladdeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale ana awoodi kara inaan dariiqo badan maro waa la iga guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejiyay
واي waxa soo dhan ay u dhacaya su'aasha muhiimka taas waa haddii madaxweyne farmaajo oo madaxnimada jecel yahay xasan waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeedadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka haddaan meeshaas xoogaa yara kaftan geliyo aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa ogtihiin marka waa la iga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada sameynayna talooyin badan waxay soo gaarayaan war waxaan dib isaga reexay baashaan hore u soco waxaan dhahay maya ma sameynayo laakiin shayga qariibka waxa waaye ruux Mareykan ka yimid ruux ka yimid Yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawo lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa la iga reebi karaa laakiin hal shay la iga reebi karaa waxa la iga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaana aan socdo siyaasadda aan socdo islaan ari raacays haddii ay wacdo tiraayi madan ku qanacay inaan u tii karaan rabaani waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saac la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxay khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin Soomaali la iga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhex galo laakiin hal shay aan rabaa inaan idin sheego Jubbaland marka doorashada laga sameeyay andhaho Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyay dawladda dhexe ma qaban qaabisay mise reer Puntland qaban qaabiyay yaa iga jawaabi kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya in doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso waxaan rabaa marka inaan u laabto dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koobaad oo sharciga lagu xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto haddii ixtiraami wayso macnaheeda waxa waa dawlad ma jirto inta jeer dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha haddaa fiirisid mu'assasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay'adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliyeed inuu intuu fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo waxa ay la taas soo saar awood ma u leeyahay maya sax waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayn arrintaas sheegay waxa caddaynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu ay isqabteen in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen ma ogidina haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladdan waa dawladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabay inay dhamaystiraan ma dhamaystirin hannaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii
amnigii maanta magaalada muqdisho waa ogtihiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka ka mid ah in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragteen dowladda waxa laga rabo inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inuu sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilanta waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraay magaalada dhan waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasiyaa tahay sharcigaa ku ogolaatay aan hogaamiso kan isla sharcigaasaa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldan tahay waxaa la socotiin siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaano ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro jubbaland isma hayaan puntland isma hayaan galmudugna waxa ka socdaa wada ogna hirshabeelle waxa ka socdaa waa ogna baa iyo bokool wixii ka dhaca waa ogna marka yaa loo shaqeynaa dowladda ayaa u shaqeynaysa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yidhaha xataa heshiisaa dhex maray ma aha sidaas aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaayo maxaa yeelay waqtigaa iga soo galay saaxiibo qaalihi aan ku waayey kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayey yacnii inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka aniga waxaan ku jira dadka dhahaya dowladda 4 sano loo dhaafo okay 4 sano loo dhaafo haddaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xurriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada gelayno soo wada gali karnaa bal ii sheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dowladdii ku meel gaarka ah aan hogaaminayay waxay ku guuleysatay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga la ogolaa waayo cid loo ogolaa kara bal ii sheega وسؤال ومحان أسعد أنا وحان أسعد كسمايو دولة وحي يلا كرتاني تراهدو وحاسن كقبنا عنك حال النجا أهاو وحاسة سمينه وحرب عن نقطة مهمة هنا أوجد ما أكتهين هرتا دولة يعني شرع جانا أوسمنا وحقوضا دولة يا مواطنين تشرع جا أوسميه شرع دولة وحسينها شرع جا أود هي واجب أنا كان وحسينها أود هي واجب كمواطن هدو شرع يقول يا كسماية إنا هذا كسماية مال قارة مع الصومالي هدو يقول يا دولتنا وأقول يا قرون كاسدي فرماجة وكبحي كرو حق ليه أنا وكبحي كرا ويفهم ما أنتم لنا هدو شرع يدي ده أسجن وأودي ده معناه وحنا ربعنا فهم وحلا سكوها يا شرعية أفرت سنة مدحينا كم هلنا أنا وأقولنا لكن محاول سمينا مدحينا دولة سمحيك الشقينا يعني وحكي الشقينا يعني وحشرع وأقول يا هديك اللي أحضر مركب محادي عكر وحادي عكر دولة مدنية بربرت محايا لي دل كان ولي دبوه الشيسين ربا iyo wax la isku og yahay adag oo dawladnimada Soomaaliya bees u noqda ma jiraan oo ogtiin sida wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan bal fiiri wartan fiiri haday naqato ana lay doortay oo waxaan rabaan sameeynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsaneyn dawladda marka waxaan rabaa inay ka jooga meesha ku socotiin sharciga hareer maraysan ka joogta waxa la idinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo hotelkan aan iga fogeyn degan ama madaxtooyo lagu wareejiyay ma soo beentay maxaa loogu wareejiyay xoog ma loogu wareejiyay xasan sheekh isla hotelkan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharciga qofkii lagu doortay haduu ixtiraami waad ixtiraamay sorta ma la arkaa danna Soomaaliya ugu ma jirto haday marka dawladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis
haddii sharcigii burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ummado badan dhaqaale ku baxshay inaan la hadlo annaga waxaan u dagaalamaynay oo u tanaasulaynay waxay ahayd dawladnimada Soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oo san jirin waxa dhala kara waa garan kartiin annaga ma rabno intaan iska aamusno markay wax laabaan inaan indhaha taagno dawladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaanayna intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn halaysa waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa u diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxaa yeelay sharci darradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan waa baxayaan meeshii rabaani aadayaan caruurtooda aadayaan dadka aan meelay aadaan lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taaganaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u maleynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga cadaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladdu inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wata ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu burbur dariiqo ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid Soomaalina isu timaado mahadsantiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.